kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka Xareed Media waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga mudiirka oo habeenada Isniinta iyo Khamiista soo galayaan aad ka daawataan janalka Xareed Media daawadayaal waa habeenimo Khamiis ee soo galayso 12 bisha 2 ee Febraayo sanadkan 2020 qodobada aan idinku haynana barnaamijka bandhiga mudiirka waxa kamid ah hal riyaal oo qura nin hooyadii iyo aabihii isku keenay kadib markii ay kala maqnaayeen 22 sano warbixintaas oo dhameystiran daawadayaal waa daawa doontaan sidoo kale waxaan idin haynaa daawadayaal maxay Soomaalidu u jecel yihiin naanaysta sirta ka dambaysa ayaan idin hayaa barnaamijka bandhiga mudiirka ayaadna ku daawa doontaan sidoo kale daawadayaal waxaan idin haynaa caawa qoys jirkooda urayay oo diyaarad si qasab ah looga dajiyay maxaa ku qasbay qoyskaasi in uu jirkooda uro diyaaradana laga dajiyo barnaamijka bandhiga mudiirka ayaad kaga bogo doontaan sidoo kale waxaan idin haynaa daawadayaal xasaasiyada laga qaado lowska oo daawo loo helay maxay tahay daawadaasi barnaamijka bandhiga mudiirka ayaad kaga bogo doontaan daawadayaal intaasi daawadayaal waa qodobada aan ku qaadaa dhigi doona barnaamijkeena fadlan daawada hadii aad nagu cusub tahay ku soo biir asxaabta nala jaan qaado oo subscribe saar channelka gambaleelkana furo muuqaalkana like saar lana wadaag asxaabtaada si aan u ogaano qodobka ku xiisa geliyay fadlan follow inooga reeb waata daawadeel markaana waxaynu gudagalaynaa barnaamijkeena qodobka ugu horeeya ayaan soo qabanayaa hal riyaal oo qura nin hooyadii iyo aabihii isku keenay kadib markii ay kala maqnaayeen 22 sano waa hal riyaal oo qura hadda hal riyaal oo Sacuudiga lacagteeda ah oo qura ayaa wiil hooyadii aabihii kala maqnay 22 sano isku keenay hal riyaal oo qura nin hooyadii iyo aabihii isku keenay kadib markii ay kala maqnaayeen 22 sano oday Sacuudiyaan ah oo 80 jir ah ayaa waxa uu dib ugu noqday xaaskiisii hore oo hadda 60 jir ah kadib markii ay kala tageen 22 sano ka hor oo khilaaf dhanka qoyska ah ay ku kala tageen sida ay sheegtay jariidada Cukaad ee maxalliga ah lamaanahan ayaa waxay ka soo jeedaan gobolka Khamiis Masheed ee Koonfur Galbeed Sacuudiga waxay isqabeen 30 sano inta aanay kala tagin 22 sano ka hor curudkeeda oo ah barnaamij soo saare caan ah oo la yiraahdo Maxamed Abu Xarayd ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay qoraal uu kaga hadlayo qisada hooyadii iyo aabihii ay muddada kadib ku midoobeen waxa uu yiri hooyo iyo aabo si nabad ah iyo wanaag ayay ku wada noolaayeen muddo 30 sano ah laakiin khilaaf dhanka qoyska ah ayaa guurkooda soo gabagabeeyay 22 sano ka hor waxa uu hadalkiisa sii raaciyay kala tagoodii kadib waxaan dusha saartay mas'uuliyad aad u weyn koriimada walaalahay ana dusha saartay aabe xitaa maskaxda ayaa dhiig oga furmay oo xilliga mas'uuliyadayda ayaa sii kortay muddadaas ay kala maqnaayeen waxaan ku rajo weynaa inaan mideeyo oo aabo iyo hooyo ay dib isugu noqdaan isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yiri maalmihii la soo dhaafay waxaan hawl shaqo u joogay Riyaad waxa isoo wacay aabo Sheekh Murci Abu Xarayd waxa uu isoo bandhigay rabitaankiisa ah inuu doonayo inuu hooyo dib ugu noqdo xilliga ilin ayaa iga soo daadatay waxyaabo badan ayaan soo xasuustay waxa uu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay hooyo ayaan la tashaday ra'yigeeda ayaan weydiiyay horay ayay iga ogolaatay meherkeediina waxay ka dhigtay hal riyaal lacag $1 ka yar iyadoo guurka u aqbashay si ay alle u raali geliso maadaama uu hadda aabe aad u daaweyn yahay cid daryeeshana uu u baahan yahay wiilkan wuxuu nasiib u yeeshay in hooyadii aabihii oo muddo 22 sano ah kala maqnaa
in uu dib iskugu soo celiyo taa oo meherkana laga dhigay lacag $1 xataa ka yar $1 lacag ka yar ee meherka ka dhigta marka weyneedaan maadaama aabahan uu yahay wax daryeelana uu u baahan yahay waata wiil waxaad daawanaysaan barnaamijka bandhiga mudiirka channelka Xareed Media waad ka daawanaysaan qodobkeena xigana waxa uu noqonayaa maxay Soomaalidu u jecel yihiin naanaysta haddii Soomaali aan nahay naanaysta way jecelnahay maxay tahay sababtan oo khalifaysa in aynu naanaysta jeclaano warbixintan ayaan idin soo baahinaya aan u gudgalo warbixinta Soomaalidu waxay ka mid tahay bulshooyinka naanaysta isugu yeera ama sida aadka u isticmaala meel walba oo ay Soomaalidu joogtana naanaysyo siyaabo kala duwan ayay ku yimaadaan waana la isugu yeeraa iyada oo mararka qaar ay dhacdo in qofka magaciisa uu ka doorbido adeegsiga naanaysta ay bulshada u taqaano isaguna uu aqbalay mararka qaar kood waxa laga yaabaa naanaystaada aan leedahay in magacaada ay bedesho magacaada aan lagu wicinbo naanaystaada bis lagu wac waa ay dhacda mararka qaar kood gaalkacyo waxay ka mid tahay magaalooyinka Soomaalida ee naanaysta aadka looga isticmaalo dadka qaar waxay sheegaan in qof kasta uu naanays leeyahay Ahmed Maxamed Shire oo ku nool magaalada Gaalkacyo oo BBC-da u waramay ayaa sharaxaya naanaysaha ay dadku adeegsadaan kuwa shakhsi ahaantiisa ka yaabiyay Ahmed Maxamed isaga ayaaba ka kow ah dadka naanaysta leh waxaa loo yaqaanaa Ahmed Sooraan waxay BBC-da weydiisay sababta iyo halka ay ka soo raacday naanaystaas magaca Sooraan waxa uu ii baxay mar aan safar kaga imid magaalada Hargeysa oo aan imid Gaalkacyo xilligaas oo ay ahayd markii ay dhalinyaradu aad u xiiseynayeen riwaayadihii uu sameeyay abwaan Sooraan ayuu yiri wuxuu intaa ku daray waxaa dhacday habeen ayaa waxaa la soo fariistay dhalinyarada oo falaqaynaysa riwaayadaha Sooraan kadibna waxaan dhinacayga ka bilaabay falaqaynta markaas bay yiraahdeen iyagoo ka duulaya lahjadayda iyo ka imaatankaygi Hargeysa ayaa waxay yiraahdeen warkani waaba Sooraankii laftarkiisa sidaas ayuuna igu baxay magaca Sooraan ayuu yiri Ahmed oo sharaxaya sida ay naanaystaasi ugu baxday inta badan Soomaalida naanaysyada ay la baxaan ayaa waxa lagu saleeyaa duwaaga geesinimada iyo waliba hubka naanaysyada lagu saleeyo duwaaga waxa ka mid ah libaax waraabe bakayle abeeso iyo kuwa kale oo badan naanaysyada hubka ama qoryaha loo isticmaalo waxa ka mid ah baroon baasuuke iyo kuwa kale oo badan waxa kaloo jira naanaysyo loo bixiyo dadka geesiyaasha ah kuwaas oo xiliyada colaada aada goobaha dagaalada waxaana ka mid ah kaligii duul kulna dirir karbaashe kooraysane iyo kaxfadhiye Soomaalida ma ahan dad ka gambada marka ay timaado naanays bixinta oo qofka si khasab ah ayaa loogu bixiyaa isagoon rabin mararka qaar dadka qaarna way ku faanaan in ay la baxaan naanays adag dhanka kale waxa Soomaalida ay naanaystu ku bixisaa qaab muuqaalka qofka ah waxaana ka mid ah sida ganay langare iyo weershe Ahmed Sooraan ayaa sheegay inta badan dadka degan gobolka Mudug ay yihiin dad xadaarad badan leh oo furfuran ayna dhibsan naanaysyada loo bixiyo hase yeeshee waxaa xusid mudan in Soomaalida dumarka u bixin naanaysyada aan wanaagsanayn waxaana loo bixiyaa kuwa amaan ah waxaana kuwaasi ka mid ah dahabo indhadeeraley iyo kuwa kale wili waxaad daawanaysaan channelka Xareed Media waxaa la socotaan barnaamijka bandhiga mudiirka markana qodobkeena kale xiga ayaynu daawadayaal idin soo qabanaynaa qoys jirkooda urayay ayaa diyaarad si qasab ah looga dajiyay qoys ku nool gobolka Michigan ee Mareykanka ayaa si qasab ah looga dajiyay diyaarad kadib markii shaqaalaha ay ka dacwoodeen in urka jirkooda uu dawaqiyay dadkii diyaaradda saarna
diyaaradda laga dejiyay waxaa iska leh shirkadda American Airlines waxayna qoyskaas ka soo raaci rabeen Miami. Yahuda Joseph Adler xaaskiisa Jeannie iyo gabdhahooda ayaa laga dejiyay diyaaradda bishii January. waxay qoyskaas sheegeen in shaqaalaha diyaaradda ay hadallo aan fiicnayn ka sheegeen diintooda Yahuuda. shirkadda diyaaradaha ee American Airlines waxay sheegtay in go'aanka qoyskaas diyaaradda looga dejiyay aan lagu saleyn waxa ay aaminsan yihiin. waxay shirkadda tilmaantay in macaamiisha ay ka dacwoodeen shirkooda. dacwadda ay u gudbiyeen xafiis ku yaala Texas waxaa lagu muujiyay xadgudub niyad jebin iyo fuquuq la xiriira diintooda. Mr. Adler wuxuu sheegay in wax ka yar 5 daqiiqo ay diyaaradda saarnaayeen kadibna mid ka mid ah shaqaalaha uu u sheegay in xaalad degdeg ah ay jirto ayna ka degaan diyaaradda. markii laga dejiyay diyaaradda Mr. Adler wuxuu ka dacwooday in shaqaalaha ay u sheegeen in duuliyaha uu qoyska ka dejinayo diyaaradda taas oo sabab u ah urka jirkooda. dacwada waxaa lagu xusay in mid ka mid ah shaqaalaha uu ceebeen iyo xushmad darro kula kacay Adler ayna ogeyd in diintooda Yahuuda ay u ogashahay in isbuucii hal mar ay qubaystaan. qoyska Adler waxay la hadleen dad ku sugnaa albaabka diyaaradda laga koro waxayna weydiiyeen in jirkooda uu soo shirayo. waxay sheegayaan in su'aashaas ay weydiiyeen ilaa 20 qof balse qofna uma sheegin in ay urayaan. Mr. Adler wuxuu sidoo kale sheegay in subaxaas ay soo qubaysteen. waxaa la geeyay hotel kadib markii diyaarad laga dejiyay waxaana la siiyay cunto. subaxii xigtay ayaa la saaray diyaarad u socotay Detroit balse alaabtooda waxay raacday diyaaradii laga soo dejiyay. war qoraal ah oo ka soo baxay shirkadda oo ay baahisay Fox News waxaa ku qornaa qoyskan Adler waxaa la weydiistay in ay diyaaradda ka degaan kadib markii dhowr qof oo rakaabka ka mid ahaa iyo shaqaalaha ay ka andacoodeen shirkooda. go'aanka waxaa lagu saleeyay in rakaabka ay ku raaxaystaan safarka aawadiis. go'aankan ay gaareen kooxdeena ee aadka u adkaa ma ahayn mid la xiriira diinta ay aaminsan yihiin. qoyskaas ayaa warbixinta lagu soo gabgabeeyay. waa tahay daawadayaal markan waxaan soo qabanaynaa qodobka ugu dambeeya ee barnaamijkeena. xasaasiyadda laga qaado lowska ayaa daawo loo helay. Mareykanka ayaa ansixiyay dawadii ugu horeysay ee loogu talagalay xasaasiyadda ay lowska ka qaadaan dadka gaar ahaan caruurta. dawada oo lagu magacaabo AR101 ama Balforzia waxaa laga qaataa afka iyadoo caruurta laga siinayo wax aad u yar balse waxay sare u qaadaysaa nafaqada lowska muddo 6 bilood ah. waxaana loo baahan yahay in dhakhtar uu si dhow ula socdo xaaladda qofka. markaa kadib dadka isticmaalaya waa in ay qaataan maalin kasta si jirkooda uu ugu dulqaato xasaasiyadda ka dhalan karta cunida lowska. dawadan ma wada bogsiinayso xanuunka. saynisyahanada sameeyayna waxa ay ka digayaan xasaasiyadda suuragalka ah in ay ka dhalato oo halisteeda ay sii jiri karto. bukaanada waa in ay sii wadaan ka fogaanshaha cunista lowska. lowska waa cuntada laga qaado xasaasiyadda ugu badan iyadoo tirada dadka ku xanuunsada lowska ay sare u sii kacaysay sanadihii la soo dhaafay. inkastoo horey loo sameeyay tijaabooyin la xiriiray daweynta xasaasiyadda lowska haddana dawada waa maadadii ugu horeysay ay ansixiso hay-adda cuntada iyo dawada Mareykanka ee FDA. qaybaha kale ee caalamka weli looma fasixin isticmaalka dawadaas. Balforzia oo loo ogolaaday in la siiyo caruurta da'dooda ay u dhaxayso 4 ilaa 17 sano waa budo lagu darayo cuntada. sanadkii la soo dhaafay saynisyahanada jaamacadda King's College ee London ayaa bukaanada waxay siiyeen dawo difaac ah balse aan si dhab ah u daweyn karin xanuunka xasaasiyadda ah ee laga qaado lowska.
dawadaas waxay waxtar yeelanaysaa marka uu bukaanka si joogto ah u isticmaalo. waa tahay daawadayaal guntiyo gabagabadii barnaamijka bandhiga mudiirka ayaynu isla soo gaarnay. guud ahaan daawadayaal waa inaga intaa barnaamijkii aad kala socoteen Xareed Media. intaan ku kulmi doona barnaamijkan kiisa xiga waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.